gabaygan wuxuu ka dambeeyey xarigii la xiray inantii wariyaha ahayd ee bishaare baanday oo xabsiga ku mutaysatay xorriyatul qowlkeeda oo ahaa cadaalad ayay u baahan yihiin shacabka maamulka Hargeysa. waa in yaroo aan degdeg ku qoray isla waqtigii iyo goortii afar xaalad ku qiimaysan ayaa la yiraahdaa qaladaadna way yeelan kartaa. dumarku waa barwaaqada Ilaahay nooga dhigay beer waa oori ku baariya iyo baayada dhabahe hooyada 9 bilood uurka kugu biishay markii banaha jiilaalta baraf ku soo daato buste ku hubisa iyo wadnaha baalku gelisaaba barbarkeeda adigoo hurday laba bugleysa waxay badiba kugu aaminaan badanka weeyaane kulmiya bahdilay inamadii baarka loo firay dhaxay hablaha baacsadeen baadidoonka kobro iyo bil khayr badugii la soo baday boqol sii horleeya jiriyo qaar kale oo badane maantana waxay beegsadeen baaqigii hadhay. bishaara tusaalaha sidii bayda loo jiray ina baanday waa taa xabsiga beerka loo dhigay beelihiina waa tay colaad ugu bareereen bulsho nabad u taal bay warmaha kula boqoleen bari iyo galbeed maanta waa la isku baabay boob iyo dil baa loo batiyo barakacmaandhow ixtiraafka beenta ayaa lagu barsheeyaa mahmah bishaare ayaan ku bandhigayaa hal kasto bacaad lagu lisaa waa barkumataal boqolyada ilmaabtiyo abtiba la isku bixin waa Baghdad iyo dalkii kama duwana waliba Beirut buugaagta mahmahdu waa baraha Soomaali barashoy horta kuma naca beej ku daabacane beledkii hadan joogo oo bixiye duulaanka ina kaahinayo bixi baan iga badbaadin maantana inaan soo baxaa way banaan tahay ballantan galaa waa midaan baaqan waligeedii beri iyo laban ka maqnahay beena hay filin